ku dhawaad 10,000 oo ka tirsan ciidamada amniga Soomaaliya ayaa si buuxda uga qayb qaadanaya sugidda amniga doorashada golaha deegaanka dawladda hoose ee Muqdisho taasi oo si habsami leh uga socota degmooyinka caasimadda. ciidamadan oo isugu jira booliiska Soomaaliya, ciidanka xoogga dalka NISA iyo hay'adaha kale ee amniga ayaa lagu daadiyay goobaha codbixinta, wadooyinka muhiimka ah iyo xarumaha dadweynaha si loo xaqiijiyo badqab buuxa oo ay codbixiyaashu ku gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Mas'uuliyiinta amniga ayaa diyaariyay qorshe amni oo ballaaran oo ay ku jiraan kormeer joogto ah, kontaroolo amni, la socodka dhaqdhaqaaq kasta oo khatar gelin kara amniga doorashada. Ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa ta'aala oo nagu makaniyay maanta noo suurto galiyay ciidamadii iyo saraakiisha ka shaqeysan aad iyo aad u mahadsan yihiin. annaga ka degmo ahaan si nabad ah ayay ilaa hadda doorashada noogu socotaa oo degan goobaha dhammaanna si nabad ah wanaagsan noogu socotaa. Ilaahay baa mahadsan. TV qaranka oo nagu soo booqdana aad iyo aad u mahadsantihiin. wariyaasha sida ciidanka oo kale u taagan oo ilaa hameen hore dhafarka ah oo inay kamera dhaliyaan dadkooda iyo dalkooda wanaagaas ay ummadda u gudbiyaan rabana adinkuna waa mahadsantihiin. ciidanka qalabka sida oo runtii dadaalay oo ciidanka amniga oo heerkan wax gaarsiin waa mahadsan yihiin. doorashadan ayaa ah mid taariikhi ah. indhahaygu waxay qabanayeen ciidamada amniga oo u adeegaya bulshada safka ku jirta. qaarkood ayaa u qaybinayay biyo kuwaasi oo safaf dheer ku jira maadaama cadceeddu ay kulushahay. doorashadan ayaa ah mid taariikhi ah maadaama ay qayb ka tahay dadaalada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan hirgelinta doorasho qof iyo cod ah taasoo muddo dheer ay shacabka Soomaaliyeed sugayeen. ciidamada ammaanka ayaa ku guuleystay in hadda oo ay tahay xilli galab ah in ay sugaan amniga iyadoo sidoo kale ay soo howlgaleen saakay 6 aroornimo. Axmed Salaad, warbaahinta qaranka, Muqdisho.